Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhawaada. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha. Xalqadiisa 35aad gooska koowaad ayaanu muuqaalkan ku falanqeynaynaa intaana muuqaalka guda galin. Fadlan muuqaalka like noo saar. Sidoo kale janaalka subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Waa mahadsantahay intaa ka bacdi bal ugu horreyntii hanoo dambeeyaan akhbaaraadku iyo baraha bulshada wixii dhex socdee aan ku horeyno falanqeynta gooska xalqada 35aad. Haddaba gooska ayuu wuxuu ka bilaabmanayaa dabcan islaan u mareynayo islaantii gurigii ay Aasiya nadiifinaysay islaan leh ayaa waxay dhahaysaa gabadhaydii ama halkan miyaad ku nooshihiin ayadoo la hadlaysa Cumar Aasiya iyo inta kaleba waxay dhahaysaa halkan miyaad ku nooshihiin idinka. Wixii intaa ka dambeeyay waxaana la tusayaa ninkii beerkii ahaa oo hooyadiisa la hadlayso ay leedahay beerka haye yaa la hadlaysaa message-kiisa yaa u diraysaa. Beerkina asagoo hadlaya ayaa waxa uu dhahayaa waxaan u dirayaa gacalisadeeda ay bika iyo message-ka u dirayaa. Sidoo kale isla markiiba waxaan arkaynaa haddana qoftii lagu magacaabayay Ayla oo ah beerkii hooyadiisa oo daawanaysa sawirada Susan. Laakiin qoftii Shenguul ahayd ayaa hadlaysa. Aylana Shenguul waxay ku dhahaysaa adiga Susan ma iskaranaysiin. Dabcan wixii intaa ka dambeeyay qoftan Shenguul waxay dhahaysaa habeenadii u dambeeyay ninkaada ayay micnaha gacan yar u tahay soo ma ogid. Haddaba Shenguul hadda islaantii cadaadiskii badnaa way ka daysay oo sidii hore dabcan sidii hore uma cadaadinayso. Haddaba haddii aan ku sii soconno gooska dhanka kale waxaana la tusayaa islaantii dabcan ninkeedu uu ku dhuftay gabadheer email xabada oo leh hadda laga bilaabo ciyaal annaga waxaan nahay micnaha hal reer ama hal family ayaan noqonaynaa. Taas macnaheedu waxay tiri sidoo kale hadalada waxaa ka mid ah macquul way tahay in gurigeyga timaadid. Taas macnaheedu waxay tahay inay halkan ka guurayaan gurigaasina ay tagi doonaan. Ma sheegi kari in ay aqbali doonaan arrinkaas ama in ay halkaasi tagi doonaan. Laakiin sida aan uga jeedno islaanta hadalkeeda waxay tiri anaga macnaha hadda kadib hal reer ayaan nahay. Sidoo kale ninkeeda ayay ku wargelinaysaa arrinkeeda ninkeeda in uu xilligaas diidi karo ma sheegi kari ama uu ka soo horjeesan doono arrinkaas. Laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya Aasiya iyo Cumar iyo Email waxay la noolaan doonaan halkaasi ay ku noolaan doonaan. Bal dhankaas iyo akhbaaraadka waxoogaa yar hanta taabsano. Saan wada ognahay gabadhii lagu magacaabayo Melissa waxay heshay taxane cusub oo lagu magacaabo Baba oo laga daawan doono telefishinka Show TV. Taxanaasna waxaa hogaaminaya Tolga Saritas. Marka saasay tahay xalqadaha soo socda waxaa la baahin doonaa dhimashada Melissa. Waa su'aal isweydiin mudan ama laba mid ay noqonaysaa ayaa la leeyahay. Ama in la dhaho Melissa way dhimato saas oo lagaga sabro ama inta Melissa hal mar loo yeero in taxanaha ay mar kale macasalaamayso oo dabcan gabigeeda bal aaso. Tan bariyahan isdhex socotan ayaa waxay tahay lacala haddii uu Cumar maqlo in Melissa ay dishay walaalkiisa muxuu samayn doonaa. Waa su'aasha runtii in badan la isweydiiyay. Lacala haddii uu Cumar maqlo Melissa in ay dishay Qadiir muxuu samayn doonaa. Ma laga yaabaa Aasiya iyo Duruug in ay kala tagaan. Maxay tahay sababta xilligan Duruug uu xanaaqsan yahay ama uu ugu laabtay sidii hore. Saan wada ognahay waxaa runtii laga dilay hooyadiisa oo hooyadiisa ayuu dhaawac soo gaaray welina ma aysan dhiban. Haddaba asxaabta qiimaha badan ilaa hadda Kara Duslarin waxay ku adkeysanayaan Nabhad in ay dhiman doonto. Laakiin sababo jira awgeed ayay Nabhad u dhiman weyday xalqadahan. Sababtoo ah hadda kor waxaana macasalaamayay Qadiir. Nabhadna haddii sidan si sahalka ay ku dhimato dhibkeeda ay leedahay. Marka sidaas daraadeed dabcan Nabhad waxaa la filayaa season 2 finalka in ay dhimato ama seasonka labaad dhammaadkiisa in ay dhimato. Saan wada ognahay waxaa horena lagu sheegay taxanaha ilaa season 4 in uu gaari doono. Saa darteeda Nabhad hadda ma dhimanayso waa loo yara kaadinaya.
haddaba aan ka gudubna akhbaartaas inkastoo hadda ka hor sheegeenba oona micnaha waxaan aaminaa ay meesha yaalin oo ay mar walba nagu dhahaan waa ay dhimanaysaa nibxad haddana aan wax u jeedin ka imo akhbaartaasi. Ma laga yaabaa Aasiya iyo Duruug in ay sidaasi ku kala tagaan? Aasiya markay ogaato Melissa in ay dishay Qadiir ma waxay u go'aysaa walaalkeeda Cumar mise jacaylkeeda Duruug? Sidoo kale Suuse iyo Cumar ma laga yaabaa dhexdooda in ay isjeclaadaan? taxanahan oo taxana family uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Caakif Atakuul. Daba asxaabta qiimaha badan mid ogaada taxanahan qofka iskale ama qofka ugu sarreeya in laga saari karin waa Caakif Atakuul. Atooraha ama laadirka ama wax walba ninka iskale waa Caakif Atakuul. micnaha atooraha musalsalkuna waa isaga, khaa'inka musalsalkuna waa isaga. way dhici kartaa hadda in Cumar si sila taxanaha looga saaro, way dhici kartaa in Duruug laga saaro, way dhici kartaa in rag kale oo muhiima laga saaro, laakiin Caakif Atakuul ha ku tarsanina marnaba. sida la sheegayaba wuxuu gaarayaa taxanuhu ilaa season 4. maadaama uu gaadhayo ilaa season 4 waa qasab inuu Caakif Atakuul uu joogo, sababtoo ah haddii Caakif lacala uu dhinto ama la xiro taxanaha waan ognahay meel alle iyo meel uu socdo ma jirayso. saa daraadeeda Caakif waxaa leeyahay waa uu joogiyaa. maalmaha xigana waxaan sugaynaa dhimashada Melissa ama in caadi loo baahiyo la dhaho Melissa way dhimatay. inkastoo micnaha xalqada soo socota horta waxaan idinka ilooba xalqada ratingkeedii ama xalqada daawashadeedii. asxaabi wax kale iska dhaafay xalqada waxay timi 9.33. musalsalku waxa uu imaaday kaalinta 6aad ma tiraahday. xitaa musalka hawlgalka sirdoonka ayaa hadda kaalinta kubad sii gal rabay. micnaha taxanuhu waxa uu imaaday meesha u hooseysa ayuu imaaday ee sa ula socda. taxanihii sidii hore ma aha, daawashadiisu hoos ayuu dhacday xalqadii dhaweed. waxaaba kaaga daran xalqada soo socota wax alle iyo waxay xiisa leedahay maba jirto. goosgooskan u jeednay goosgoos waxuu ahaa goosgoosadii hore oo dhan ka duwan. goosgooska labaad ma sheegi karin iska dhisi doonaan. micnaha xalqada soo socota wax alle waxay xiisa leedahay ma jirto. marka saa darteeda taxanaha xalqada soo socotana raytinku aad ayuu intaas iyo in ka daranba hoos ugu sii dhici doonaa ee saa ula socda daawadayaasha qiimaha badan. haddaba saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan waxaan idiin sheeganaa in aan kasoo wareegnay janaalka Khalid Drama. saasay tahay janaalkan ayaan insha Allahu tacaala si maalinla ah muuqaalada usoo gelin doonaa iyo falanqeynta labada musalsal ee musalsalka walaalaha iyo dhaawacii qalbiga, halka aan rajaynayno in aan ku soo daro kuwa kale cusub. sidaas darteed ha iloobina in aad subscribe saartiin, sidoo kale muuqaalka inaad muuqaalka like saartiin. haddii aad awoodiin ama aad awoodid in aad muuqaalkan share garaysidna share garee. waad mahadsan tahay. anigoo saaxiibkeena Khalid ayaa waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.